telefishinka caalamiga ah ee Al Jazeera qaybta ku hadasha luqadda Ingiriiska ayaa baahisay arrin fadeexo ku ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. sida uu telefishinku sheegay, madaxweynaha ayaa ku kacay musuqmaasuq aad u baahsan ayagoo soo xiganaya ilo xogogaal u ah madaxweynaha. waxaa lagu sheegay warbixintu intay socotay in madaxweynuhu uu musuqmaasuqay lacag 130 milyan ah, taasoo loogu talagalay in wax laga qabto caqabadaha Soomaaliya ka jira. ayaa loo siiyay Soomaaliya si wax looga qabto arrimihii haystay xilligaas oo ay ka mid ahaayeen amni xumo, macaluul iyo shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyarada. dhanka kale, si wax looga qabto abaaraha ba'an ee dalka ku soo laalaabanaya loona gaarsiiyo biyo iyo caafimaad dadka baadiyaha degan. madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday intii ay warbixintu socotay inuu si degdeg ah wax uga qabanayo xaaladaha ba'an ee dalka ka jira haddii uu helo lacagtaas. sida ay warbixintu sheegay, balse lacagtaas ma marin wadadii loogu talagalay oo wuxuu ku shubtay akoonno gaar loo leeyahay, ugumana qareemin dadkii tabaaleysnaa. halkii wax uga qaban lahaana wuxuu u adeegsaday kharbudid iyo arrimo uu ku kharibayo dalka. xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in UN-tu isla markiiba ay dalabkii u fulisay siisayna 130 milyan, iyadoo aaminsanaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud yahay nin ka bixi kara hantidaas oo u qareemi kara siin kara dadka walaalihiisa ee tabaaleysan, kuwaas oo aan hoy iyo harba haysan kuna baaba'san waddanka gudihiisa. ballanqaadyadiisa ayaa waxaa ka mid ahayd inuu bilaha soo socda ciddii loogu talagalay gaarsiin doono lacagtaas, balse ma aysan noqon oo weli dadkii noloshoodii bay ku jiraanin, waxayna ku nool yihiin nolol aad u adag, sida ay warbixintan qortay Al Jazeera. anigoo Axmed Maxamed Mira waana mahadsantiin.